5 sababood oo ay kuu necab yihiin. Kuwa ku necab. 1. Isbeddel ayaa samaysay. Kuwa nacaybka badani ma jecla in qofku isbeddel sameeyo noloshiisana horumarsho. 2. Waxaa haysataa wax aysan haysanin kuwa ku necab. Dadka nacaybka badani waa dad aad u masayr badan oo ka masayra horumarka qof kasta sameeyo. 3. Ma aadan guul daraysanin. Aad bay u necab yihiin qofka aanan guul daraysan nolosha. Waxay jecel yihiin in qof kasta uu noqdo qof nolosha ka dhacay. 4. Waxaa tahay qof dantiisa keliya ku mashquulsan oo aanan ka sheekaynin dadka kale iyo noloshooda. Markasta ayaga waxay jecel yihiin qof nolosha ka dhacay oo qof kasta iyo noloshiisa ayaga laxanta. 5. Heerka ay ayagu nolosha ka joogaan adigu kama joogtid. Markasta waxay jecel yihiin qofka ay nolosha isku meel ka joogaan. Adigu waad ka gudubtay heerka nolosha ay ayagu joogaan weligaa. Ha u jawaabin sababtoo ah waxay doonayaan in heerka nolosha ay ka joogaan inay kugu soo jiidaan oo aad heerkooda tagtid. Si muuqaalo badan oo horumarinta nolosha iyo psychology-ga ku saabsan u heshid, fadlan subscribe iyo follow ha ilaawin. Mahadsanid.